تأدون كيسة قبل قصة كمان كرا إلهي بابا ينسين كرا لكن هل كان نفاق بحياة عروري بكوما كجوتير نحدنتي معلم والبسيدة أيونا حية gurigan oo ku yaala xaafadda Istaad House ee magaalada Hargeysa oo marka horeba xaafadan ay iska tahay mid aad u xiriiriya isla markaasina ay adag tahay in la helo wadooyin laga soo galo ayaa gabi ahaanba gubtay waxaana gurigan sida ay sheegeen dadka ama qoyska in gurigan gubtay uu ka koobnaan qol balse gurigu markii uu gubanayay way ka maqnaayeen dadku wuxuu ahaa goob cilaa oo hoosta ka xidhan waana sababta keentay in guud ahaanba guriga wixii hoos yaalay ay dhulka la silmaan oo ay gubtaan sida ay sheegeen alaab fara badan oo raadadka haraagooda halkan ka sii muuqda ayaa dab ka gubtay barbarkayga waxa taagan mid kamid ah in qoyska gurigan gubtay walaal bil soo dhaw goreen magacaaga Cabdirashiid Salebaan Cabdirashiid oo bal goreen dabkan iyo guriga bal faahfaahin naga sii warniyo manaan ogeyn gurigan yacnihi caruurtii reerka waa ka maqnaa inama seexan jiray marka hanti badan baa taalay oo adigu laba guri hanti baa taalo guri kale oo yacni aan lahayn ma laabta kaga soo gofa te waxaas waa tiifiyada halka yaala imsa qolbuha afar buha marka walaalkii ciyaalkiisa deganaa way ka maqayeen imanka laakiinse waxa seexan jirayna ma habeenkii marka dawaa mucjiso waheen baa gubtay gurigan maxaynu markaa kaga hadalnaa adoo in dhow waa laga maqnaa guriga deedna wax la idhina kuma jirin baa layidhi dee gurigan ciddii gubtay lama garanayo markuu ololina annagu maadaama jaarka nahay waxaa lala soo yaacay jira kaamayaha howlo guryihii kale laga xakameeyey mar dambey dandamisku noo yimaadeen sidaasaa gurigii lagu xakameeyey dabka inuuna sii fidin maadaama meeshu meel iscidhiidhi iska tahay oo dee xaafad jambiga ku hayaan jaaraha sidaad u xakamaysan dabka jira kaama wixii biyo xaafadaha yaallo idil ayaanu soo qaadnay sidaasaa lagu xakameeyey hareerahaanu ka marnay waanu isku wada nibad markii dambena lagu soo gaadhay maadaama guriga aanay cidi joogin oo laga maqnaa wax gubay jaarhaanid kuma ka war haysaa wallaahi imika wax gubay war looma hayo laakiinse waa la baadhayaa ciidamada ammaanku waxay dhaheen waan ku daba jirnaa waanu baadhanaa waxna way ka qoreen laakiinse gurigaa cidi kumay jirin wax dabayna kuma hoos noolayn wax leedhoo gubayna ma jiro maadaama aad ka mid tahay dhallinyaradii xaafadda ee u soo gurmatay ee baktiyey in agabka hoos yaalay ee aad ku gaadheen maxaa ka mid ah wallaahi gurigu wuu qufulnaa intii la jabinayay iyo dabkii baa isnoqon waayey guriga agab fara badan baa ku hoos gubta oo adigaa arkaya sida aanay jiinkaa weyne halkaa yaalla taayirro cusuba meesha yaallay aanay alaab badan oo taallay dee guri nin hagaagsanay u gala buu ahaa oo alaab badan baa hoos taallay xaafaddanaan taagannahay waxaa lahaa reer inaan la yidhaahdo axmed gadhle ina axmed gadhlaa lahaa baa lahaa waxay ka koobnayd jiingad bay ahayd 3 maqsin iyo barandaa bay ahayd 3 maqsin iyo baranday ahayd waa taasoo way shuf beeshay waxa kugu Istaad House-kuna saas u gubanaya xukuumadda Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa sharafta leh inay dadkan hoos u eegaan maalin walba gubanaya aada wadooyin iyo loo saaro oo la hagaajiyo oo meeshan ay ka soo gaadhaan عروري بكوما كجوتير نحدنتي معلم والبسيدة أيونا حية أيار كوما كجوتير طبعاً هو طبعاً وادي قاسو وادر كيسا قريبة ودي بيا محن كورة هذا وده ملهين guryaha gubtay guriga halkan ku gubtay in soo qolbo ka koobna saddex qolbo hooyaha baa la yiri cidimay galeen guriga de wax gubay wax ku tuuray wax shiday lama garan karo laakiin waxa weeyaan dawladda anigu waxaan oran lahaa shalay waad ogeydeen suuqeeni waaheen sida uu gubtay inuu adduunkeena iyo maalkeena aynu ugu weynay maantana halkan de adduunkiisa qaba laga soo kaban kara ilaahay baa bayna siin kara laakiin halkan nafaa ku baxaya waxa xusid mudan in maalin ka hor xaafadan Istaad House-ka sidoo kale uu guri ka gubtay waa Maxamed Andar iyo Cabdirasaaq Shaam MMTV Hargeysa